بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كسور دوادا بلا أكاديمي وحالك نتكسو تشينيسا ترينين كاسو كصابسان conflict resolution skills وآخر فضاها لو مروح حلين خلافاتك. arbitration ku wuxuu noqonayaa af Soomaali marka aynu ku macnayno dhexdhexaadin oo dhexdhexaadintuna waxay ka mid tahay nidaamka casriga ee loo xalliyo khilaafaadka. nidaamkaas oo dhinacyada khilaafku u dhaxeeyay dhinac waliba oo soo xuranayo hal dhinac oo isaga matala labada dhinac isku imanayaan kadibna sheekada ama kiiska ama arintii la isku haystay la falanqeynayo. marka arbitration ku waa dhexdhexaadin buu noqonayaa af Soomaali. qofka arbitration ka shaqeeyana waxa loo yaqaanaa arbitrator oo ah dhexdhexaadiye. iska bilaabana bismillah. arbitration dhexdhexaadintu in the law marka laga hadlayo sharciga is a one of one mid kamid ah extrajudicial dispute resolution waxa weeyaan xalinta khilaafaadka ee ka baxsan garsoorka. marka arbitrationka marka laga waramayo waxa la yiraahdaa waa nidaam kamid ah nidaamyada loo xalliyo khilaafaadka laakiin garsoorka ka baxsan. oo garsoorku haddii kiisku soo galo ama maxkamadaha soo galo waxa loo yaqaanaa litigation oo ah suit litigation baa la yiraahdaa waa dacwad maxkamad ka furan ama waa dacwad maxkamad qaadayso oo kiis maxkamad yaala. laakiin extrajudicial dispute resolution waxa loo yaqaanaa nidaamka loo xalliyo khilaafaadka ee maxkamaddu aanay ku jirin ama maxkamadda ka baxsan ama si kale hadii la yiraahdo maxkamadda dibadda ka ah ay noqonaysaa. weer halkaasoo by the parties dhinacyadu to a dispute muranku u dhaxeeya agree ay isku waafaqaan to submit inay gudbiyaan kiiskooga to a neutral third party dhinac saddexaad oo dhexdhexaad ah. dhinacaasoo loo yaqaano arbitrators dhexdhexaadiyayaal oo arbiters loo yaqaano. ujeedada lagu gudbinayaan waxa weeyaan for resolution si loo sameeyo xal. marka inta badan marka laga hadlayo nidaamkan arbitrationka labadii dhinac marka hore way isku imanayaan khilaafkii ka dhaxeeyay way soo bandhigayaan dhinac waliba dhinac buu wakiilanaya kadibna kiiskii waa loo gudbinayaa dhinacaasi marka waa dhinac saddexaad waana dhinac neutral ah oo dhexdhexaad ah oo labadii dhinacba dhex u ah oo dhinacna la safnayn dhinacna aan ka tirsanayn. marka si kale hadii loo dhigo waxa loo yaqaanaa oo arbitrationku ka mid yahay waxa la yiraahdo ADR mechanism oo alternative dispute resolution. si kale hadii loo dhigo waxa af Soomaali ay ku noqonaysaa nidaamka xalinta khilaafaadka ee garsoorka ka madax bannaan ama waxa la yiraahdo extrajudicial dispute resolution. halka markaanu kaga nimaadno waxaynu eegaynaa arbitrationka iyo waxa uu ku salaysan yahay. arbitration dhexdhexaadintu is based upon waxay ku salaysan tahay eeda contract law marka laga hadlayo sharciga heshiisyada or the law of the treaties ama sharciga heshiisyada. labada eray treaties iyo contract just waa laba eray isku micnaa marka afka sharciga lagu hadlayo oo contract waa heshiis treaties waa heshiis. the agreement between heshiiska u dhaxeeya the parties dhinacyada to submit their dispute si ay u soo gudbiyaan murankooga oo ugu soo gudbiyaan to arbitration dhexdhexaadintu is a legally binding contract. marka afka sharciga lagu hadlayo heshiis kiiska la soo gudbinayo ee loo soo gudbinayo labada dhinac waxay noqonaysaa legally binding contract heshiis sharci oo fulaya. marka ereyga binding marka sharciga lagu hadlayo waxa la yiraahdaa waa heshiisyada sharciga ee fula. marka legally binding contract wuxuu noqonayaa heshiis sharci oo awood fulineed leh. saadaradeed arbitrationku go'aamada ay soo saaraan in badan waxa la yiraahdaa waxa ay leeyihiin awood sharci oo fulaysa. oo tusaale ahaan si kale hadii aynu sharaxno awoodda sharci waxay noqonaysaa dhinacii heshiiska jabiyay in lala xisaabtamo oo uu la kulmo cawaaqib ama cawaaqib sharci inay ka dhashaan. all arbitral decisions dhammaan go'aamada ay soo saaraan dhexdhexaadiyaashu are considered waxa loo tixgeliyaa to be final inay yihiin go'aamo gabagaba aan binding sidoo kale inay yihiin go'aamo fulaya
oo leh awood fulineed. Who are the mediators? Waa ay mediatorsku? Mediatorsku ereyga mediator wuxuu ka yimid mediation. Mediationkuna waxa weeyaan af Soomaaliga waxay isku dhow yihiin dhexdhexaadin. Marka qofka dhexdhexaadi ta sameeya ama dadka sameeya waxa loo yaqaanaa mediators. Dhexdhexaadintuna waa mediation. Marka imika waxaanu ka hadlaynaa dadkii dhexdhexaadinta sameeyay. Who are waa ayo ama waa kuma ama yihiin the mediators dhexdhexaadiyaashu. It's useful waxa faa'iido leh. It's useful waxay tahay faa'iido ama faa'iido leedahay to think inaynu ka fikirno of all potential mediators dhammaan dhexdhexaadiyaasha awoodda leh in conflicts marka laga hadlayo khilaafaadka as falling into taasoo u dhacaysa oo noqon doonta one of the following three categories mid ka mid ah saddexdan waaxood ee waaweyn. marka dhexdhexaadiyaashu saddex bay noqonayaan. saddexda waxa u horeeya individuals oo ah shakhsiyaad, waxa ku xiga states wadamada kale dhexdhexaadiyaasha noqon karaan oo haddii tusaale ahaan xagga siyaasadda marka laga hadlayo haddii laba wadan xiriirkoodu xumaado dhexdhexaadinta waxa gala states ama wadamo. sidoo kale waxa dhexdhexaadiyaal noqon kara institutions and organizations ururo ama hay'ado. marka intaas waxa noqon kara dhexdhexaadiyaal. waxaynu ka horeynaa individuals oo ah shakhsiyaadka dhexdhexaadinta galaya yihiin si shaqadee ay qabanayaan. The traditional image of mediation muuqaalka dhaqan ahaan dhexdhexaadintu one narrated by the media inta badan waxay ahaan jirtay mid lagu falanqeeyo warbaahinta and popular accounts inta badanna waxay mid caana state of the single keliyata usually high ranking inta badan waxa darajada u sareeya kaga jira individual shakhsiyaad shuttling from one place to another dadkaasoo ka shaqeeya goob iyo goobo kale trying iyagoo isku dayaya dadku to search for inay raadiyaan understanding isfahan restore inay soo celiyaan communication xidhiidh or help ama inay caawiyaan settle conflict sidii loo xalin lahaa khilaafaadka. in many instances tusaalayaal fara badan a mediator dhexdhexaadiyuhu is an individual waa shakhsi who does not have kaas oon lahayn an official role kaalin muhiima ama door rasmi aan ku lahayn or who does not represent ama aan wakiil ka noqonayn his or her country isaga hadduu nin yahay ama hadday gabar tahay qofkaas oon wakiil ka noqonayn wadankiisa in any capacity awood kasta. marka haddaynu islaamka af Soomaali kusoo koobno dhexdhexaadiyaashu waxay noqdaan saddex individualska ugu horeeyo shakhsiyaada oo waxay noqon karaan dad bay noqon karaan shakhsiyaada waxay noqon karaan Allahumma salli ala Muhammad states bay noqon karaan oo marka siyaasadaha dunida laga hadlayo wadamada dunida waxa dhexdhexaadiya haddii ay khilaaf yimaado wadamo ayaa kiiskooda gala. haddii si kale loo dhigana waxa waqtiyada qaarkood wadamada dunida dhexdhexaadin kara oo kaalinta dhexdhexaadinta qaata institutions and organizations oo ah hay'ado iyo ururo. marka individualsku door bay ku leeyihiin dhexdhexaadinta. tusaale ahaan ujeedooyinka dhexdhexaadinayna waxa weeyaan in isfahan la gaadho oo khilaafkii isfahan laga gaadho xiriirkii u dhaxeeyay labada dhinacna la soo celiyo sidoo kale dhinacyadana ku caawiyaan inay xallistaan khilaafaadkooda. leaders hogaamiyaashu have interfered in conflicts waxay u farageliyaan khilaafaadka in different parties waxay ka farageliyaan qaybo kala duwan in the different parties of the world. leaders hogaamiyaashu have interfered in conflict waxay faragelin ku sameeyaan in different parties of the world waxay faragelin ku sameeyaan khilaafaadka iyagoo kaga sameynaya meelo kala duwan oo dunida ah as respected persons iyagoo ah shakhsiyaad xushmo leh oo xurmeyn leh oo ixtiraam leh with a strong commitment iyagoo ay ka go'an tahay ama dareen commitment with a strong commitment iyagoo leh go'aan adag oo ay doonayaan to conflict resolution inay khilaafka ku xaliyaan. they do not do sama sameeyaan they do not do as to a government officials uma sameeyaan iyagoo laakiin saraakiil dawladeed laakiin iyagoo individuals oo shakhsiyaada
ay khilaafaadka xaliyaan waxaana ka go'an oo ay commitment ay ku yihiin in khilaafka laga gaadho xal